waan idin horta waxaan nahay guddidii nabadgelyada ee golaha ayaa halkan idinku yaadhay ujeedaduna waa arrimaha nabadgelyada waa marka hore marka labaad waxaan idinka mahadnaqaynaa isxilqaankaas soo xilqaanteen iyo dadaalka waqtigaad aynu ku ballanaa ku timaadeen marka labaad gudoomiyaasha degmooyinka waa rag dhalinyaro waxa ugu weyn deeyin imka guudcadu baa ugu weyn isaguna marka runtii aad iyo aad baanu dadaal badan baa haysaan runtii dadaal aalada haysaan waanu idinku hambalyeynaa dawladnimaduna waa dawladaha hoose waxaanu door bidnay markaa inaanu xagga sare ka nimaadno inaanu hoosta wax mar haddii amni laga shaqaynayo dadka isgaaraan degmooyinka ugu horeeya guddiyada nabadgelyada xaafadaha ayaa ugu horeeya markaa nidaam baanu samaynay aan doonay inaynu hoos ka bilowno ilaa sare ilaa madaxweynaha hadday noqoto inaanu sare u wadno marka ujeedadu waxay daaran tahay xaalado badan baa iska jira waddanku wax badan baa lagu soo kordhaya cadow badan baa dalku leeyahay marka waxaan doonay bal inaynu guddiyada xaafaduhuna qaabka inoola shaqeeyaan iyo siday u dhisan yihiin inaynu xog ka helo oo iswareysano haddii halkii la doonayay aanay gaarsiisnayna wixii talooyin iyo sidii loo gaarsiin lahaa aynu wax iska weydiino siday idinka idinla shaqeeyaan iyo sidaa u wada shaqaysaan iyo sayrka labaadoo bilayskii iyo saldhigyadiiba amnigiinoo haya iyaguna siday idinla shaqaynayaan iyo siday nabadgelyada roolka ay ku leeyihiin in kastoonu ognahay wax badan haddana waxaanu nidhi qolo walba doorkeeda aa siisaan marka xogteen waxay daaran tahay balorta inaynu qaabka guddiyadeenna xaafaduhu u dhisan yihiin iyo qaabka ay u shaqeeyaan horta inaynu wax iska weydiino isla ogaano dabeetana degmooyinka wixii talooyina ee gudoomiye degmada ama culeysyo jira ee xagga amniga u baahantiina annana inaanu xagga sare ka soo daadajinno insha Allah kulankeena uu noqdo kulan furo ah oo joogto noqdo annagu kulley 3 bilood baanu saddexdii biloodba mar ayaanu rajaynaynaa inaynu halkan wax ka qaadnay inaynu isdaba la socono oo aynu hoos ugu daadajinno marka warka inta badan idinkaan horta idin soo wareejinaynaa markaynu xogta kala qaadanayno wixii talooyinada nabadgelyada loo sii adkeyn lahaa annaga iyo guddiyada degmooyinka iyo hadday maayaradooda degmooyinkooga tahay iyo hadday tahay guddiyada xaafadahaba inaanu sidii loo wada shaqaynayay si ka sii badan aanu u wada shaqayno marka xiriirkaasi umaanu doonayay inaanu adkayno kuma koobno oo keliya magaalada Hargeysa laakiin waxaan doonaynaa dhammaan guddiyada magaalooyinka jooga dalka oo dhan inaynu fariintayada iyo taladoodaba inaanu isgaadhno marka waxay daaran tahay in sidii amnigana loo adkeyn lahaa wada shaqayntana loo xoojin lahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin run ahaantii kulley way ku cusbaan doontaa bulshadeena ama bulshada ku dhaqan guud ahaan Hargeysa oo marka la yiraahdo guddidii nabadgelyada caasimadda Hargeysa guddidii nabadgelyada qaranka oo yeedhay 9kii degme gudoomiyaasha caasimadda Hargeysa iyo 9kii gudoomiye nabadgelyo ayaa wax cusub nagu noqon doonta kulley marka la dawladda hoose caasimadda Hargeysa waa hooyada bulshada ku dhaqan ama guud ahaan dawladaha hoose waa hooyada bulshooyinka ku dhaqan gobolada ama degmooyinka marka sababta aan mid maanta golaha waxa weeyaan in guud ahaan ama ay noogu yeedheen guddida nabadgelyada ee golaha guurtidu in guud ahaan la xoojiyo nabadgelyada gobolka iyo caasimadda annaguna ka gudoomiyaal ahaan ama 9 gudoomiye degmooyinka caasimadda Hargeysa oo afkooda ku hadlaya ama 9ka guddi nabadgelyo halkan la jooga kolleeyagu waxay gudanayeen shaqadoodii nabadgelyada ahayd annagana waxaan laga weydiiyuun roolkayagii ama qaybtii aanu ku lahayn nabadgelyada caasimadda Hargeysa oo runtii aad uga shaqeyno marka 9 gudoomiye degmada caasimadda Hargeysa laga hadlaya ama 9 gudoomiye nabadgelyada runtii nabadgelyada waan ka shaqeynaa xubnaanu ka nahay hariya habeenba waan u soconaa marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddida nabadgelyada oo waajibaadkoodii gudanaya inay su'aalihii aan weydiiyeen iyo wixii ay xog u baahnaayeen sidooda u siinay kulamadeeduna intan ka badnaan doonaan baan rajaynaa haddii Ilaahay raahdo waxaan maanta halkan u nimid kulan guddida nabadgelyada golaha guurtida ee weeyay guddiyaasha degmooyinka iyo guddiyada degmooyinka intuu naga mahad celinaa guddida kulankaas oo ahaa isxog waraysi iyo xaaladda nabadgelyo ee heer degmo oo runtii aan anaguna xog badan siinay iyaguna aan xog badan ka qaadanay waxaan bulshada reer Soomaaliland iyo ka caasimadaba ku wargelinaa in qof kasta mas'uul ka yahay nabadgelyada sidii hore nolol shaqayn jirteen si ka wanaagsan nolol shaqaysan qaranka iyo institutionka dawladana qayb kasta ay diyaar u tahay in kor u qaadin nabadgelyada aad iyo aad madaxweynaha uga mahadnaqaynaa guurtana waxaan uga mahadnaqaynaa runtii roolkeeda nabadgelyada ay mar walba ku jirto maantana ay soo gaadhay heer degmada la fadhiisato
xogta qaataan aad iyo aad baan uga mahad celinaa runtii